racfaano kala duwan maxkamadu u qaatay ugu dambeyn imaamkaniti lagu magacaabo Khalifa Williams waxa lagu fuliyay xukunka dilka hore maxkamadda ay ugu xukuntay muddo 20 sano ah ka hor dadaal walba oo ninkaniti uu bixiyay iyo racfaan walba uu ka qaatay xukunka city hore loogu ridana suurtagal kama dhigin in marka uu ka badbaadiyo xukunkan dilka ee 20 sano ka hor maxkamadda ay ku riday sababta ugu weyn mas'uuliyadana waa in dusha ninkaniti laga saaray gabar wariya oo hore Mareykanka marka loogu dilay muddo 20 sano ah ka hor in ninkaniti loo aaneeyay mas'uuliyadda soo idil ninkaniti in dusha marka laga saaray ninkan warbaahinada Mareykanka iyo dadka halka city ku noolba waxa marka ay tilmaamayeen in cadeymaha xitaa marka city loo helay ninka marka la eego kale iyadoo marka city suurtagal aysan ka dhigi karin marka si sax loo fiiriyo in ninkaniti xukun dil uu ku mutaysan karo sababta in cadeymo buuxa maxkamadda marka city aanan la horkeenin ugu dambeyn waxa marka city suurtagal in xukunkii marka city lagu fuliyo muddo 20 sano ka hor maxkamadda ay ku xukuntay iyadoo xitaa marka city maalmihiina soo dhaafay saacadihii ee dadku marka city Mareykanka sala dhex qaadayeen ninkaniti miyuu u qalmaa xukunkaniti marka maxkamadda ay ku xukuntay mise waa lagu gardareynaa qof marka city dembigaas galayba ma ahan muuqaalkan waxa ku eegi doonaa qisada ninkaniti lagu magacaabo Khalifa Williams imaamkan marka ku soo islaamayba xabsiga bas intaan gudgelin muuqaalka marka waxa ku xasuusinayna muuqaalka la garasiin share gareeso hadii aad ka mid yihiin baawinta nagu xirnaa nagu soo birto wad kuma sadaqta ku bixinaysa daawashada muuqaalkan anu gudagalno muuqaalkeena maanta Marcellus Williams ama Imam Khalifa Williams ninkaniti waxa marka city uu noqonayaa 55 jir sanadan 2024 waxaana ay noqonaysaa kiiskiisa in ninkaniti gibi ahaanba si indha la'aana iyadoo cadeymo buuxo aanan loo haynin xukun maxkamad 20 sano ka hor iyadoo cadeymaha xitaa aad aan loo baarin iska gaartay in gibi ahaanba gobolkaniti Missouri governorka qabsaday uu sanadaniti 2024 duuduub indha la'aana marka city uu ku dhahay kiiskan waa in sidii maxkamadda hore u sheegtay gibi ahaanba loo fuliyo ninkaniti mas'uuliyadda uu qaadanayo oo ah gibi ahaanba inuu ka dambeeyay saameeyna gacantii ka dambeysay uu ahaa gabadha wariyaha ee 1998 la dilay in ninkaniti marka uu ka dambeeyay gobolkan waxa marka city uu ka mid yahay gobollo wali ay ku dambeyso in xukunada marka city dilka qaab marka city loo fuliyo in injection qofka marka city lagu diro cirbad saasna gibi ahaanba marka city uu ku geeriyoodo gabadha wariyaha ninkaniti loo aaneynay in uu dilay waxa marka lagu dilay gurigeeda 1998 xilli habeenimo ah iyadoo marka lagu dilayna midi dhabarka ilaa meel kale oo jirkeeda kamid loogu dhuftay tiro gaaraysa 43 jeer dhiigbax zaa'id oo ku imaadana suurtagal waxa uu ka dhigay gabadhan gibi ahaanba marka inay geeriyooto cadeymo booliska ay raadiyeen maadaama halka city ay ka aruursadeen cadeymo ay kamid ahaayeen in dilaagu uu uga tagay mididii uu wax ku dilay in cadeymo kale meesha ay ka heli kareen oo marka raadad maxyaabo kale suurtagal ka dhigi karay boolisku raadin ay ku bilaabeen in daba joogis ay daba kacaan si ay ku soo helaanba qofka mas'uuliyadda ay dusha u saari karaan inuu ka dambeeyay gabadhaniti wariyaha in marka gurigeeda lagu dhex dilo sanadun kadib cadeymaha booliska ay ninkaniti u soo qabteen Williams oo ah mas'uuliyadda in dusha ay uga saari karaan kaliya waa in marka city ay u aaneynayeen in sabab marka city uu noqon karo maadaama Williams lagu arkay laptop gabadha wariyaha ay lahayd boolisku waxa ay marka ka dhigteen cadeyn in maxkamadda ay horgeeyaan oo ay dhahaanba ninkan maadaama laptopka uu hayo waxa marka uu mas'uul ka noqon karaa gabadha dilkeeda ama ugu yaraan xitaa qof dilka soo geystay yani kaniti oo marka maskaxda maadaama ninkaniti ku tuhmayeen booliska yaa u keeni karo qofkaniti xataa marka xilliga city maxkamaddu gibi ahaanba iyadoo DNA ama cadeymo kale dheeri ah waxyaabo marka inaysan sii baarin in gibi ahaanba xukun ay iska gaartay oo ninkaniti 2001 waxa dhacdayba in gibi ahaanba marka maxkamaddu go'aan ay ku gaartay inay ku xukuntay xukun dil ah muddo dheer ninkaniti iska xirnaa xukunka dilka maxkamadda markii ay ku riday 2001 kadib ninkan waxa noqotay in kiiskiisa su'aalo dib ay uga soo laabtaan su'aalahaasi ay kamid ahay in gibi ahaanba ninkaniti boolisku wax cadeyn oo DNA aysan u haynin kaliya boolisku waxay ku andacoonayeen ninkan gacantiisa inay kula soo qabteen laptopka gabadha wariyaha ee la dilay ninkaniti gacantiisa inuu ku jiray xilliga ay boolisku soo qabanayeen iyo cadeymo yar oo ay soo dhodheebeen booliska maxkamaddana ay la hortageen cadeymahaasi maxkamaddu waxay noqotay in ay ku raacdo booliska si indha la'aana oo gibi ahaanba booliska aan la weydiinin maadaama mididii wax lagu dilay xitaa goobta looga tagay DNA-da city oo xagga ay ka soo heleen DNA-da ninkaniti isku dhigmaan gibi ahaanba looma eegin oo maxkamadda xilligaas waxa iska noqotay in gibi ahaanba sida boolisku ay rabeen indha la'aan in marka ninkaniti ku rido xukun dil ah
kiiska ninkaneti oo ah in dib markaasiti sanooyin kadib la furay xilliga markaa xukunka dilka maxkamadda ay ku riday kadib waxaaba dhacdaba in DNA-da booliska ay soo haysteen marka la baaray iyo DNA-da ninkaneti uu leeyahay in gebi ahaanba farqi weyn uu kala dhexeeyo waxaana xitaa gebi ahaanba ka xishooda in xukunkaneti marka ay ku degdegaan gobornaradii hore u soo maray gobolkaneti Missouri laakiin gobornarka haatan haysta 2024 waxa gebi ahaanba markaasiti uu sheegay in kiiskaneti qasab ay tahay in la dedejiyo loona raaco sida maxkamadda 2001 xukunka dilka ninkaneti ugu riday in gebi ahaanba markaasiti aanan laga laabanaynin sidaanetina gebi ahaanba markaasiti ahaanayso waxa jirtay ninkaneti in dadyow dartiisa isugu soo baxeen magaaladaneti Missouri maxkamadda horteeda iyo maamulkana ku eedeynayay in ninkaneti ay kula gardaroonayaan xukunka uusan mudnayna in dil uu wajaho sababta iyagoo dadkaneti ku difaacay maadaama cadaynta DNA-da ee la baaray ee booliskaba ay haysteen iyo DNA-da ninkaneti uu leeyahay gebi ahaanba ay kala duwan yihiin sabab mas'uuliyad dusha looga saari karo dilkaneti uu geystana in gebi ahaanba meesha aysan jirin dadyoogu waa mid markaasiti ku difaacay in xukunka markaa ninkaneti looga gardaran yahay maxkamadan gebi ahaanba ay ka qaldan tahay waxaana jirtaba xitaa ehelka gabadha la dilay ee mas'uuliyadda ninkaneti dusha looga saaray inuu ka dambeeyay in marka ay dhaheen ninkan maadaama DNA aanan laga helin oo cadayn rasmiya noqon karto in DNA-da ninkan iyo DNA-da meesha booliska waxyaabo ay ka soo aruuriyeen gabadha lagu dilay ka helen ay kala duwan yihiin ninkaneti kuma qanci karno maxkamadda xukunka ay ku riday oo dilka ah gebi ahaanbana waa ka soo horjeednaa oo ninkaneti xukunkan uma qalmo dilka ah waxyaaba sidoo ay jiraan oo ehelka gabadha xitaa ay ka soo horjeedaan xukunkaneti dilka ee lagu fulinayo iyo dadyooga magaaladaneti Missouri ku noolay gobolkaneti maamulka ka jira iyo gobornarka halkaneti xukuumada gebi ahaanba waxay dhaheen nama anfacayso waxyaabaha dadku ay tilmaamayaan waxaana keliya noocad in markaan fulino xukunka maxkamadda dilka ninkaneti hore ugu riday ninkaneti waxaa jirtay in xabsiga intaana lagu xirin ka hor markaasiti waxa qof aan muslim ahayn laakiin xabsiga ku dhex islaamay diinta si wanaagsan markaasiti u sii bartay ilaa darajo heer markaasiti wanaagsan wax badan diinta uu ka yaqaan uu gaaray laakiin ugu dambeyn qadarku waxa markaa uu asiibay in dunida uu macsalaameeyo bishan 9 2024 oo waxa dhacdaba in markaa gebi ahaanba xukunka lagu fuliyo oo aanan wax dambe oo dib looga laabanayo gebi ahaanba ama wax dambe la baarbaarayo aysan jirin oo gobornarka halkanetiba uu ku indha adkaa kuna markaasiti pressure gareynayay maamulka halkaneti ee booliska in gebi ahaanba xukunka ay fuliyaan ninkaneti waxa markaa dhacday in gebi ahaanba xukunka markaasiti lagu fuliyo Allahu naxariisto hadda ninkan lagu magacaabo Imaam Khalifa gebi ahaanba dunida kuma noolo waxaana markaa la dhihi karaa xukunka ninkaneti uu wajahay waxa markaa ay kamid tahay xukunada sida markaasiti cajiibka ah u dhacay ee sanadan 2024 in iyadoo markaasiti cadayn waxyaabo badan oo lagu kalsoonaan karo qof in xukun lagu la ridi karo oo DNA-du markaa ay ugu muhiimsan tahay meesha iyadoo oolinba in ninkaneti maxkamadda xukun waqti dheer ay ku riday iyadoo dib loo cadeeyay xitaa ninkaneti mas'uuliyad inuusan yeelan karin maadaama cadeymaha booliska aan lagu qanci karin in sidii uu xukunka markaasiti hore maxkamadda ugu fulisay in ninkaneti gebi ahaanba markaasiti loo raaco